madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre ayaa markiiba waxa uu soo gaaray degmadaasi Hargeysa iyada oo ay hoos socdaan ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee traafika la yiraahdo iyo madaxda gobolkaasi oo iyaguna la socday isla markaasina tilmaamo ka bixinaya sida dhulku uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre waxa halkaasi ku soo dhaweeyay madaxda degmadaasi Hargeysa iyada oo halkaasi ay ku sugayeen ururada bulshada ciidamada qalabka sida waxaan halkaasi ubax aad u qurxoon iyagu qorto galay ubaxa kacaanka ee degmadaasi Hargeysa oo halkaasi saxiisa iyo kalgacal leh madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jaalle Siyaad u soo dhaweeyay madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad Barre intii uu joogay Hargeysa waxa uu ka furay garoon weyn oo caalami ah oo diyaaradaha ugu waaweyn adduunku ay ku degaan kaasi oo lacagtiisa ay ku baxayso 1 bilyan iyo 20 milyan oo shilinka Soomaaliga إلى ما أنت هالكن ومسلوب وينه هنا بسم الله يسوع بلوغي جرام كحصو وحن شعلها جرام كحصو جرام هرمشيو جرام جرام باباي وحلو بدي كرامة ولوك جرام حصو وعالمية وديارها دون قوة ولوكودي كرام قبل كوبوي قلبي مقالة ملح يري هنا مسلوب ويا شرفية iyadoo la fulinayo awaamirta ayaa saaka halkan waxaa diyaar u ah wasaaradda howlaha guud iyo wakaaladdeeda inay bilaabaan hawsha dhismaha cusub ee garoonka Hargeysa Jaalle madaxweyne iyo diiranaantii ama firfircoonaantii adibihii iyo dhaqanka u ahaydeen oo ay nooga muuqatay sameeyay run ahayd shirka halkaa ku shirkanahay maaha mid been yaado waxa weeye mid aynu ku dhisanayno aynaboor caalami oo aynu doonayno dayuuradaha kuwa ugu waaweyn inay ku soo degaan oo dadena ama socod xawli dheer xawli adag xawli dheer qorada marka inaynu inagu isaga tegay maalintii ma gaari aynu la gaar aan ku dhaqaaqo marka xigta wixii aynu horay wax badan baynu ku gaar dadbadan waxay dareemayaan dad badan odaadka kala finaala